noomaydana coday oo nagu yan taageeran islaayo oo fidno u horseedo waxaad u kala dooranaysaa saa qabo wartalowkee waxaa wanaagsanaya akhraya ilaa wixii aad geli baan shugaynay hawahaasaa wanaagsan mid ola kaa suaali waa ka midinay waxaad u kala dooratay keebaa tolow wax furi kara dee dadku waa isqabtay war kanaa roon iyo kanaa roon baa lagu kala badiyey mid buu codka u batay waa aniga dhammaantiin waxaan ka jawaabaya xisbi kasta ah oo wixii aad doonayseen ayuunbaa wadadeeda qabanaya ee horumarka ahaa haddaan ka leexdo kii kurdiye ahaa iyo kii wadani ahaa iyo kii kalarkayso qo warsiada haydade waa kuu qabsoomaya markiina gudoomiyaha cabdiraxmaan ee wadani laba goor hadlay maalintii uu dhiibaya baa ahaadeen wiilatu waan ogolahay natiijadii wuxuu yidhi oo midyahu ka yidhi umaan tanaasulin ninkaan tartamaynay umaanaan tanaasulin xisbigaan u tartamaynay qarankaan u tanaasulin waa iska waray haddii qaranki u tanaasulin wax kama qabo waayo waa guud laakiin bal hadda dib u baara qaamuska siyaasadda oo haddaad qofkii kula tartamaya aada u tanaasulin xisbigana aada u tanaasulin miyaa tanaasulshay qoladiina dhakhaatiirtu bal hadda mar akriya diiwaanka siyaasadda oo annaga mar baanu asbarogii boogsanaaye bal arrintaana xalkeeda hala helo haddaa ayaa loo tanaasulay ilan dadkii barbu ka reer markaa dadkii taageersanaa dee xisbigii kale iyo ninkii doortay waa laco dee markaa bulshada qaybaa codadii waxbaa la hayaa dee in la sii wadaayaa waxaan sugaynay markay cari dunto carabaa waa la baryaaye ee ka soo reegto in xisbiga wadani iyo guddoomiyuhu luqataa ka qabow dee idhaahdaan ummadda wadana daraad markii wax dhaceen anoo idinkan ka baqaaya oo dadkii codeey ixtiraamaya oo kuwaanay codeyn ee aan maanta madaxooda ixtiraamaya anoo xaaladdeena guud oegaya ninkii ugu horreeya telefoonda markii dagaalkaas dhacee uu soo gaaray cabdiraxmaan bu gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan u codeynaya xisbiyada dadku ayaa dee hogaaminaya qabeeladana ka baxaan mashaakilka waana noo xalila dadku dee anaga dhegeysta noo codeey runtii laga furiyey idinkama fiicin laakiin waana karamayseen markaana ixtiraamnayda ahayd anoo taa ka duwaya laha waxaasaa dhacay goor soo dhaqsaa kulmasidoon baa jirtay aan waxba bardaha fadhiya uu tegay goor ku qaado wuxuu ka bilaabay walaalayaal doorashada waa mahadlay soo maynaahay haabila degdegsanay walaalayaal kulmiya baa maahina aniga waa laysoo sheego saas u yiri cajaladii hadduu doontay waa dhegeystay waxaan leeyahay haddii qaamuska siyaasadda laga helo xisbi doorashadii walaa xisbi kaa amaahiyey waa mid wicsi ah laysoo sheego waxaanse leeyahay haddaanu kurmiya nahay xisbigii kurmiya iyo murashaxii kula tartamayay annagu ma qabno inaan dalmaasyo doorasho waxaanu qabnaa inuu tartamay si cadaalad laynoogu qaybiyey tiradii laynoogu hogiyey aada ka dacwootay aada tiri meelaha qaarkood goobaha qaarkood iyo kursiga qaarkood ay baaro in la baaro weylki idin xalimay oo aanaan ka hadan oo la hubiyey oo aynu 80 kun oo cod ku kala badnay baan qabaa oo feer iyo daacada waxay isweydiinay haddii maanta 80 kun uu leeyahay waynu helo waa la naamahay waa la doono cabdiraxmaan uu xisbiga uu hogaaminayo doorashada mar uu ku noqon doono oo tolo tiraya oo lagu kulma hadduu keeno 87 muxuu yeeli doonaa ilaa rag baa ka tegay 87 waxaan leeyahay xisbiga kurmiga wadani halkii baan ku haynaa walaalnimo qadarin mucaarad inta aynu wada leedahayna aynu wada ilaashano intaynu isku khilaafsan nahayna waan idin ogola dhaliishaan ogola waxaan ogola marka hore nagu soo horeysaan inaanu talada qaranka dhexeysada aanu kala tashano haddaad u gara weyaan dadka u sheegtaan haddaad qalad ugu haysaan inaad dadka u sheegtaan inaga waayimaysaan biniaadam gaf naga waayimaysaan waa in badan baa naga heli doontaa waqtiga dowladda baan biniaadmi oo qaladka waa leh mucaaradda waxaan u sameynay inay toosisa ka xilka haya uma inaan samaysan inaynu dee colaad dadka ku hayno iyo waxbaa maqan iyo afgarsanay waxaan hortiina ka cadaynaya oo qaranka u sheegaya waxaan ogolahay ixtiraam waxaan ogolahay wadatarshi waxaan ogolahay qadarin intay xisbi in talada dalka ee guud dhinaciina ka joogtaan inaydaan qaladkeeda noo qarin in ra'yigiina ayna naga fiicantihiin oo naga fiicnaada maamulka aada xisbigiina iyo brograamkiina iyo mikrofoonkiiba ka wataan intaba diyaar baanuna
laakiin dee iyanaan hayn udadki oradino kale waa laga dhacay inanka dee codeeyey iyo inanta codaysay ee intaasoo dagaalo martay ee maalin cid u tagday inaley waa lagu dhacay maalin waa lagu dhacay dee colaad ka bixi mayso